ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud madaxweyne nooma ahan xil nooma hayo kuma ayeedsanin kuma raacsanin haddaan beesha habar gidirnaa hooyadiis baanahay meydkiisa ma arkin meel lagu duugay ma arkin si cadaalad darro ah oon la maqal oo la aragna waa loo dilay waa jecelnahay meydkiisa inaan helno oo xilligan haddaan meydkiisa helayno weli ma usa googo in aan anagu meel aan naqan ku duugano guryaha ku duugano magacayga oo ah Nadiifo Faarax Cabdi ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidid oo gardarrada lagu dilay sida qaladka ah oo cadaalad darrada lagu dilay oo meydkiisii aan waayay oo ehelada iyo waaridka iyo walaalka iyo tolka dham ka murugooday waa si aada oo cajiib leh oo la arki karin aan la arki jirin baan uga xumaaday ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud oo maxay to xilkii laga duubay xilka baa laga duubayaa madaxweyne nooma ahan xil nooma hayo kuma ayeedsanin kuma raacsanin haddaan beesha habar gidirnaa waxaan u dareemayaa cadaalad darro aan hadda ka hor la arag oon la maqal oon Afrika iyo Eesha ka dhicin oon dal iyo dabad ka dhicin baan u arkay markii qofka la dilo qofka eheladu waa inay duugataa waaridkiisa waa inuu arkaa walaalkiisa waa inuu arkaa eheladu dham waa inay aragtaa meydka oo la duugto oo meeshaad ku ogtaa qabrigiisa ka siyaarad hooyadiis baanahay meydkiisa ma arkin meel lagu duugay ma arkin si cadaalad darro ah oon la maqal oo la aragna waa loo dilay waa ka murugoonay haddaan hooyo ahay haddaan maxay to ehel leenahay haddaan walaal iyo waarid leenahay murugo muslimka kala gaarta anaga maxay to na soo gaartay waxaan dalbanaynaa in dadweynuhu taas oo ka jawaabo oo wixii maxay to naloo qaban kara naloo qabto oo cadaalad darradaas aanan maqal oon la arag tolka iyo dadweynuhu wax nooga qabtaan taariikhdiisu waxay ahayd ragga ku beegan 26 jirka 27 jirka 6 sano ilaa 7 bilood oo xiraay intaasna cadaalad darro u xiraa sharci lama marin maxay to sharci looma baarin awal kas wuxuma uusa dilin kas waa la yaqaanaa oo inta la soo koristaag bash xabada lagu siiya wuxuu ka tagay sida aan aragnay gabar haddana wararkana soo gaarahaya islaan baa wiil la tagtaa la yiri anagu hadeer ka hor arag haddana aan rabnaa inaan raad qaadno meeshay kula go'doontay inuu dhintay inuu nool yahay waa jecelnahay meydkiisa inaan helno oo xilligan haddaan meydkiisa helayno weli ma usa googo in aan anagu meel aan naqan ku duugano guryaha ku duugano meydkiisa waa aan doonaynaa cadaalad darradii in raggii cadaalad darrada nooga dilay in loo mariyo wixii ay waajib leeyihiin waa doonaynaa haddii tolnimo jirto oo dawlad jirto oo dawlad cadaalad ay jirto si weyn oo qalad ah oo murugo ah oon la arki jirin waa tii koobaad oo dhacday oon weli la arag hadeer koor oon habar gidir ku dhicin oon hawiya daarood meel soo marta la arag Soomaaliya qomeel ay ka dhacdo lama arag murugadaan oo kale hadda koor qofkii dishay qofkii laga dilo qof dhimasho waa la yaqaan geeri waan u joognaa laakiin qofkii inta uu ka dhinto si walba ha ku dhintay aad meydkiisa duugato qurux waa dhimasho waa la yaqaanaa laakiin murugo waay dawlad cadaalad haday jirto ama maxay to tol jiro ama cadaalad jirtana in meydkiisii naloo raadiyo maxay to wixii wax nala kaga qabto wixii oo awlaadii oo ka tagay wixii oo asagu ugu maqnaalo wax nala kaga raadiyo aan doonaynaa haddii cadaalad jirto ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud madaxweyne nooma ahan xil nooma hayo kuma ayeedsanin kuma raacsanin haddaan beesha habar gidirnaa hooyadiis baanahay meydkiisa ma arkin meel lagu duugay ma arkin si cadaalad darro ah oon la maqal oo la aragna waa loo dilay waa jecelnahay meydkiisa inaan helno oo xilligan haddaan meydkiisa helayno weli ma usa googo in aan anagu meel aan naqan ku duugano guryaha ku duugano magacayga oo ah Nadiifo Faarax Cabdi ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidid oo gardarrada lagu dilay sida qaladka ah oo cadaalad darrada lagu dilay oo meydkiisii aan waayay oo ehelada iyo waaridka iyo walaalka iyo tolka dham ka murugooday waa si aada oo cajiib leh oo la arki karin aan la arki jirin baan uga xumaaday ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud oo maxay to xilkii laga duubay xilka baa laga duubayaa madaxweyne nooma ahan xil nooma hayo kuma ayeedsanin
kuma raacsanin haddaan beesha habargidirna waxaan u dareemayaa cadaalad darro aan hadda ka hor la arag oon la maqal oon Afrika iyo Eeshiya ka dhicin oon dal iyo dabad ka dhicin baan u arkay markii qofka la dilo qofka eheladu waa inay duugataa waaridkiisa waa inuu arkaa walaalkiisa waa inuu arkaa eheladu dhammo waa inay aragtaa meydka oo la duugto oo meeshaad ku ogtaa qabrigiisa ka siyaarato hooyadiis baanahay meydkiisa ma arkin meel lagu duugay ma arkin si cadaalad darro ah oon la maqal oo la aragna waa loo dilay waa ka murugoonay haddaan hooyo ahay haddaan ehel leenahay haddaan walaal iyo waarid leenahay murugo muslimka kala gaarta anaga na soo gaartay waxaan dalbanaynaa in dadweynuhu taas oo ka jawaabo oo wixii naloo qaban kara naloo qabto oo cadaalad darradaas aanan maqal oon la arag dalka iyo dadweynuhu wax nooga qabtaan taariikhdiisu waxay ahayd ragga ku beegan 26 jirka 27 jirka 6 sano ilaa 7 bilood oo xiraay intaasna cadaalad darro u xiraa sharci lama marin sharci looma baarin awal kas wuxuma uusa dilin kas waa la yaqaanaa oo inta la soo koristaag bash xabada lagu siiya wuxuu ka tagay sida aan aragnay gabar haddana wararkana soo gaarahaya islaan baa wiil la tagtaa la yiri anagu hadeer ka hor arag haddana aan rabnaa inaan raad qaadno meeshay kula go'doontay inuu dhintay inuu nool yahay waa jecelnahay meydkiisa inaan helno oo xilligan haddaan meydkiisa helayno weli ma usa googo inaan anagu meel aan naqan ku duugano guriyahana ku duugano meydkiisa waa aan doonaynaa cadaalad darradii in raggii cadaalad darrada nooga dilay in loo mariyo wixii ay waajib leeyihiin waa doonaynaa haddii tolnimo jirto oo dawlad jirto oo dawlad cadaalad ay jirto si weyn oo qalad ah oo murugo ah oon la arki jirin waa tii koobaad oo dhacday oon weli la arag hadeer koor oon habargidir ku dhicin oon hawiya daarood meel soo marta la arag Soomaaliya qomeel ay ka dhacdo lama arag murugadaan oo kale hadda koor qofkii dishay qofkii laga dilo qof dhimasho waa la yaqaan geeri waan u joognaa laakiin qofkii inta uu ka dhinto si walba ha ku dhintay aad meydkiisa duugato qurux waa dhimasho waa la yaqaanaa laakiin murugo waay dawlad cadaalad haday jirto ama tol jiro ama cadaalad jirtana in meydkiisii naloo raadiyo wixii wax nala kaga qabto wixii oo awlaadii oo ka tagay wixii oo asagu ugu maqnaalo wax nala kaga raadiyo aan doonaynaa haddii cadaalad jirto